dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed way sheegeen maalintii Khamiistaha deer 3 saac mallamasa ibar dagaal ha qaadeen nimankii oo maleeshiyaadka al-shabaab ka ansaarta lahaay taas oo muddo badan la tacaali dowladda muddo badan la tacaali markii dambe ku dhimatay meel 5 qof 6 qof ku dhimatay oo kamid ah hal qof jooga iyo shan kale ka dhaawantay dhaawagaas oo lijay sida shal ulisi qaar kamid ah lijay buurtile raw nasabla qaar kamid ah ilaa idaal kunta al-shabaabka daaweehay ilaa hatana gacantiyo ka jara iyo meel ka daaweehayaan yahdii una maamulka degmadii oo horeey iyo dhamaan hay'adii amniga degmada Bardaala malaaqeyntii saraakiishi maamulkii kala hebnoojay intii maquumeynta kala may adeeyane inuu unugeeka lama caamilo doon sidii shabaab lama caamilaan yahaan lama caamilo doon aan hayna sifadii hore la kaga gabday injarna iyo adeeyana dhamaan kastamana maamulkii iyo nisay malaaqeydii degmada Bardaala deegaamada waxa ku jeedeen ya adeeyan may kale antan ka adeeyana bulshadii degmada Bardaala muddo oo lama sano isjiidkii la jaray karaal lahaada maxayna wal qabiil isaayada maxayna wal qabiil nis jeedona maxayna wal dawladii dino mu'aaradana maxayna wala sifil lahaayeen wal siin qari geeka ilaahay mahadle may deertay inuu fiintiyo boogto oo banaanka hadhikaman wala hadii fiintiyo boogto banaanka hadhikamana idqari korti ilaahay abuuray ma jarta way adeeyane mar lamaadi mar saddex inuu shabaabin waan la ka bilaw saacadun ilaahay karaal nagade sidii shabaabkan lama caamil doono waana shabaab ka fiirsado doono bulshadii una xukuumaani deegaamadan dhaxday inuu ku fiirsado doono shabaab xarunno inay ka taala doono oo ilaahay karaal nagade go'aankasna sidii hambahiya aan qaadani yaan fuliyaan hadii ilaahay karaal nagade way sheegana shacabka degmada Bardaala oo khaasatan guud ahaan shacabka Soomaali ma in sheegana khaasatan degmada Bardaala may kajiftaasna nibad mardan korkin dagaal ma ka dhiyaw dagaalkii xigmay ba ka dhig doona dadka deegaamada hoos kooyaha degmada Bardaala oo shacabka xukuumaana oo ka dhax nooliin inuu ku dhax saarna adowki marka sifaysay awaalday mardanba bulshadaas dhaadiyeen walan ka dhig doona awaamirtan sidii tan qaadal doona maamulka degmada Bardaala ilaa amniga ee degmada shirku jaraad meeka saabsan yaa may raay muddo dagaal muddo hajiitimi oo yaraan halsan ibar hadareeray dad oo isbaare birit mardhikadan wadadii iskiiraas gidi ibay margooyin sheebka birit ka dhibaatayeen laakiin lan argay madaasay dad mu'aarada ku baadatan arrinta isrugdi mar inay tan reer la gili aran reer la kawaale ku baadamada maamulka degmada Bardaala ilaa mood amnigan ku aansan in dadkii sheebka birit ka dhibaataya isbaare taali waadan iyo bahan mi al-shabaab dhatiis ay meeray harumo ku sii al-shabaab harumusaydi degnaashi isaanid idan bana ka taageeray kubada taariikh 20 ilaa ma August 2024 dagaalkii inta qaadan oo ka dhimadii horjoogayo kubada maamulka degmada iyo maamulka noo sarayba may go'aansaday in dadkaas aan hayna may leeyahay dad oo wal tabado in dad may leeyahay maleeshiyaadka al-shabaab gacan saarnay yeelan daliisha making lang may leeyahay hatta Soomaali roo gurugab oo al-shabaab dhatiya may leeyahay lama bilood tariyo kormale isdhaamarayn afar bilood dhax degnaan kubada tan may leeyahay dadka dhaaw ama inta ka dhaaw meel jeey buurta nasab la leeyahay oo 70 kilomitir diin soo ranjar saas dartiya may leeyahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed dowladda federaalka may ogoonsanay in dadka may leeyahay dad al-shabaab dadweynaha ka dhagan degmada Bardaala waa jamaahin sheegane inii oo dadkaas may leeyahay ku baal dheeradan insha Allah taala maanamay ku sugu doona degmada Meeriruwan laga seedo doon dadweynaha ma in sheegane in lan shakhsi lan haysan reer lan haysan mu'aarad la haysan oo jarna dadkii may leeyahay jiitin dheer ku baadiyo iska sifeen inii may leeyahay dad al-shabaab dirsati oo amirta al-shabaab na fuliyo insha Allah taala maamulka degmada la moodi amniga may diyaarin inay dadkii ku difaacan oo bilaay tawfiiq mayba shir jaraa'id kullu gobodi maamulka degmada Bardaala gobadaha maamulka kumidana may sheegane shaqooyin badan degmada Bardaala ka dheedi shaqooyinkaas dheer ku baad taliisa ligi aan huriyata may ka dhamaday dagaalkun oo nimankun aragdeeda oo jidgooyin badan degmada ka soo biyan jidgooyinkaas ku baad dawladda may la dagaalantay nimankii jidgooyinka dhakan yoo kumid hayan bahan may in bahana duurka sagalan meel oo degmada baaro ku foga seedan
kubaad dagaala meelaha ku qaadan marlamaad dagaalkii may ka dhamaday taariikh 20 iyo lama bilin siida ta ka jirna dagaalkii horjoogay iyo kuwiinay ka dhamaday kubaad unina dadan oo dhamaday maamulkeena dhaawac badan ajari oo dhinigaas dhaawacii may qaadanaad ardayda buur nasab la raaco 70 kilomitir diin sooran jarta kulay maamulka may hasaaray iyo dawladda no sarayto may hasaarana nimanka ini shabaab dhaawac joog qaaday khawaarij in siyaasaddaas oo ardaydan kala leeyin may raayis xukun bob oo ardayda maamulku shabaab door kala jaro oo arday khawaarijta oo dawladda federaalka dagaalamaha maamul gobolka dagaalamaha ya kumid in may ogaadaan unina maamulka ana dawladdan hana amartay amarkii fuliyaan nimankii saacadun lagu bilaaw lan alla lanka taageeron in khawaarijay lankii la jaro in khawaarijay waan la dagaalam doon insha Allah intii naftabani dadkii jidgooyalka hayeen degmada Bardaal badan ka sameeyeen oo hay'adooyinkii oo muhaliga ahaa degmada Bardaal hakadhiidi kulubane barwaaga saaran hayti oo baabiyeen oo dad garaabe oo hortiin gabni in maamul la indhirtiin oo gabni hayna oo shabaab nagada dhaawaqii lankiin horwiina ka hay arday ka dhamaday degmada Bardaal dadka kalena ida la ka dhaawajo la jeey dadka kalena buurto shabaabka ka wiin iska daawayay nasab la raaw aan hormaran laakiin 70 kilomitir diin suran jartay leey oo maseedan alxamdulillah dadkii dheeradan shabaabkii uu la dagaalamaani ku dheerani in helfadima madung meel iskaran isdawaan leeyma isdilaan leeyma wal kala ma shabaabo leeyma shabaab wiinaani in assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh antuma iska kooyna shirkun jaraayidan gobonay horta Bardaal kan badan dhibaato ku jiitmaasi walay in jiitmaasi ni kullay waran ama maamul fado iyo walaan la eta siyaasad la eta lahayni hatta may eedan ogaanay inii 20 ilaa madii 20 ilaa bilisiyada 2024 mid Bardaal la weeraray yaamay aragnay inii dhaawagii arlaadon kadhi lanqaadi raamada iyoonay إذا الإيميل أن أوين اللانقادي هديكون أرجني ونيب حتى هدي أن أنتو كبنا إداينكم لا هديكم بنا وني الشباب أصحايسن لكن لانك أفربلود أنت كجرا ما يساك كجرا سي أن لهاينه ما تأيدني كإدا تإني يون الشباب إين ونين حتى ما إيد أن أوين سنة إني الشباب نمر لا يلنيس كل وايو هدي بأنت بلك أرج مسبرد الهوار مس لم الشباب تاجروا برد الأنهوب كأرجنا sidii lama amilay lama amilay kan shacabka ee bilidka roogan nimankaas hadii isu taageer marka hadii dawlad goboleedka iyo dawladda federaalkana ogaati kulli sirdoon iyo walba anjara uneynayada eedan ogaani inii intii ku baad nimankun xukuma weydiyaan iyo walaasnayn arakorna jeeda uneen idaayana waan ku baahay assalaamu alaykum shirkun jaraad inta iska kooyni dhibaato badan oo degmada Bardaal macnaha dhatiya bilowgan ku jartay inta iska kooyni way haneen ku batayna nin sheegay inii dadkii oo banaanka deganaayay biridka algaadeenka wadi shabaabka beeran buur nasab la raw dhaawajo la jeey ya hatana nin sheego hay marka uu shabaabna horta ba olhaynay tumayo shan sano oo kale ya olhayni horta bis dhawaanay hatana wala isdawdoon lanka meeli mayl raayis fikradii oo shalayna shabaab haada kor geekan shabaab haada kor hadii in shabaabka biiran biyo fursad la nagati usoo ku biirana shabaabna horta ba isdhawaanay hatana horta ba olhaynay dawladda Soomaaliya shabaab horta ba olhayna sidii in isdawaan leeyatan isdawaan marka taas wareer ma la marka wala an ka darfad yaang assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh